Waxaa jira bilyaneero qarsoon oo aan muujinin hantidooda. Liiska dadka maalqabeenka ah ee caalamka waxaa inta badan lagu soo bandhigaa wargeysyo uu ka mid yahay Forbes, laakiin waxaa jira shakhsiyaad aan laga warqabin balse haysta dhaqaale aad u badan. Waxaa ku jira madaxweynayaal, ganacsato iyo weliba dambiilayaal. 1. Xasan al-Bolkiah. Ninkan oo 74 jir ah waa suldaanka ama boqorka waddanka Brunei, sidoo kalena ah ra'iisul wasaaraha dalkaas. Waxaa la sheegaa inuu leeyahay in ka badan 600 oo gawaarida nooca qaaliga ah ee loo yaqaano Rolls Royce. Guriga uu degan yahay waxa uu ka kooban yahay 1800 oo qol, magaca qasrigiisuna waa Nuurul Imaam. Qiimaha gurigiisa waxaa lagu qiyaasay 350 milyan oo dollar. Xasan al-Bolkiah wuxuu haystaa lacag dhan 20 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. 2. Isabel dos Santos. Waa haweeney ganacsato ah oo u dhalatay dalka Angola. Waa gabadha curadda ah ee uu dhalay madaxweynihii hore ee Angola, José Eduardo dos Santos. Aabaheed wuxuu waddankaas xukumayay intii u dhaxaysay 1979 ilaa 2017. Sida uu shaaciyay wargeyska Forbes sanadkii 2013, korarka hantideeda waxay ku noqotay haweeneydii ugu horreysay ee bilyaneerka dollarka ka noqotay qaaradda Afrika dhinaca dumarka. Lacagteeda marka la isu geeyo waa 3.6 bilyan oo dollar. 3. Daawud Ibrahim. Ninkan waa burcadka ugu weyn dalka Hindiya, wuxuuna magaciisa ugu horeeyaa liiska dadka ay sida weyn u raadiso dowladda waddankaas. Wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa deegaanka Dongri ee magaalada Mumbai. Dowladdu waxay madaxiisa dul dhigtay 25 milyan oo dollar oo abaalmarin ahaan loo siinayo qofkii soo gudbiya macluumaad lagu soo xiri karo. Waa nin hanti badan haysta oo awood leh. Lacagtiisa waxaa lagu qiyaasay 7.1 bilyan oo dollar. 4. Vladimir Putin. Waa madaxweynaha dalka Ruushka. Wuxuu ka mid yahay shakhsiyaadka ugu hantida badan caalamka, laakiin ma muujiyo hantidiisa mana qirto. Inta uusan siyaasadda ku biirin, wuxuu ka tirsanaan jiray ciidanka sirdoonka Ruushka. Lacagta uu haysto Putin waa 131 bilyan oo dollar. 5. Kim Jong-un. Waa madaxweynaha dalka Kuuriyada Waqooyi oo waddankaas xukumayay tan iyo sanadkii 2011. Dad badan kama warqabaan inuu hanti xad dhaaf ah leeyahay maadaama inta badan shacabka dalkiisa ay yihiin sabool, dowladdiisana ay saaran tahay cunaqabateyn dhaqaale. Tan iyo sanadkii 2012 wuxuu guddoomiye u ahaa ururka shaqaalaha ee Kuuriyada Waqooyi. Wuxuu iibiyaa kheyraadka dabiiciga ah ee dalkiisa. Lacagta uu haysto Kim Jong-un waa 5 bilyan oo dollar. 6. Bashar al-Assad. Waa madaxweynaha dalka Suuriya, wuxuuna xilka hayay tan iyo bishii Julaay ee sanadkii 2000. Aabihiis Xaafid al-Assad ayaa horey waddankaas madaxweyne uga soo ahaa intii u dhaxaysay 1971 ilaa 2000. Bashar al-Assad sidoo kale waa taliyaha ciidamada qalabka sida ee waddanka Suuriya, isagoo tan iyo sanadkii 2011 la dagaalamayay kooxo mucaarad ah oo damacsan in ay xilka ka tuuraan. Lacagtiisa waxaa lagu qiyaasay 5 bilyan oo dollar.